بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. وروى جنرال كوي جنرال سليمان علي بلا ومضى اسلام كا غود ahaan waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. saaka baraha bulshada soo toosayo la shalay waxaan la yaabay ma ku arkay nin hoorayay la oran jiray hoorayay oo reer Burco ahaa oo wala oo nin xigmad badan ahaa Allah u naxariisto waa dhintay ayaa stadiumka Burco ruwaadi ka socoto soo istaagay soo galay dabadna wuxuu arkay khadra daahir waxa la Sahra Ahmed oo heesiisa oo qaadaysa heesna baamaana rabbi salli ala al-habib Muhammad wa ala alihi mawlan saasu eega intuu iska dhaqaaqay buu maxaa dhakh nabiga baratay imika Allah maxaa dhakh Sheikh Mustafa baratay Allah maxaa dhakh Sheikh Mustafa baratay qaar spiritualayaala oo kubkooda way samarin oo Ilaahay u sujuudin oo waxa ku meelaha Yurub iyo dhulkan gaajada ah Yurub lagu salcayo qolol ku xiran oo caagada spirta daasada spirta Allah biira la fadhiya iyo hablo qaar waalano cawradooda ruuxiya TikTok-yada ayaan arkayaa maanta meel walba ka caayaya TikTok iyo Facebook iyo Twitter iyo meel walba ka caayaya Sheikh Mustafa qofka Sheikh Mustafa waa nin Ilaahay karaamiyay ilaa waa culimada waaweyn nin Ilaahay karaamiyay Ilaahay ba karaamiyay ونين إلهي الشفري ونين عالمة ونين أنت ودي دينة الإسلام كجلية وقتي هي أمة إدجلس أنا جري ونين كاشرف بدن وكا كرامة بدن وكا دين بدن وكا مادي بدن وكا حشمة بدن وكا كرامة بدن وكا شرف بدن وحدود ضبط أرضها وهدرني ذاتك عامضة إن وحبة فهمين هذا كي شيخ مصطفى سجعت شربان كوشت ذاتك عامضة أو وحبة فهمين أما أف صومالي وكير يهي ورضينا هذا كصومالي فهمي أنا قاعد يدي فصير النادي كيست شيخ مصطفى مرنا بكمو هر إيمان اتراك صومالنا كمان وخضر شيخ مصطفى وحكي لي يوسف بربرنيا حسوقي دولة دين بولتريجا هيدي سياد برا كجيستي قبل هذا وقوي صومالي لان كجيستي برعيها كجيستي إلا بدأ بقول كن قفل وحسوقي تضبيه الله باتن كميج الدجال كديار ده اللي مكعي يكي إسرائيل فلسطين كجيستي أي صوب برنيا يعني وحبا كلا دوكو كلا دوني وقلت المامي إن شاء الله يدتكو كحام برعيها كيسوط العد يضرور يكام بكر وحنتكو هاي الشلي هدين الأورا الله كاساعد لقوا اعترافيا أنا وحبا كدوين تبعت صوت وقوس قويني كوا ما أنت أسو قودية يا صومالي لان بربر كده يا باب يدك شقيني أنا يهين قار كحسوق بدنا فلسطين كحسوق بدنا لبعتها كجيستين صومالي لان يا حسوق كجيستين أنا كدوين حسوق فلسطين لو جيسني يا إسرائيل كجيستين وفهم كينا أيال ليتا صوماليات كوا هي صومالي لان قاربان الله ضيع كوا Soomaaliland nacaybku hayo ee xaqdiga iyo xumaanta iyo xasku ka buuxna kalmad darawrnay kuwa reer Soomaaliland ay daba yaacay Sheikh Mustafa waxaan leeyahay inaanad aqoon iyo aqli iyo aragti midna ku gaaray culimada waxa jira qaar lama taabtaan Sheikh Mustafa iyo Sheikh Dirro kale culimadaas waa lama taabtaan weey waxaad ka sheegtaan waxba yeeli mayso ilaaha weyn ee waahidka ah ee kaliya aynu caabudno ayuun baa xiri kara waxna yeeli kara hadalku yirina maydaan fahmin Soomaaliland kamu hor iman itiraafkeeda waxbana kamu sheegin wuxuu tilmaamay oo ummadda u sheegay inay Soomaaliyana xasuuqday Soomaaliland Israa'iil la xasuuqday Falastiin waxna ku kala duwanay waxaan leeyahay idinkoon hadalka dhageysan idinkoon fahmin idinkoon laga yaabo in afkoon lagaga sheegay baad cayis ka soo qoraysa culimada kaana
waa laba taabtaan cid xidhi kartaana anaa imika halkan di kale ilaahay mooyo cid wax yeeli kartaa ma jirto Sheekh Mustafa iyo Sheekh Dirro kale iyo ragga noocaasi laba taabtaan qolada reer koonfureedka ah ee doonaya inay annaga isku kaayo dhuftaan naga dhex kalluumaystaan ee cuqudada iyo xaqdiga iyo xumaanta iyo in ummadda reer Soomaaliland noolaato oo meel gaadho oo ictiraaf hesho oo dawlad noqoto oo ka xun ee xasad ku hayo waxaan leeyahay warkan culimadiinni maaha culimadiinni cuqudada iyo qabiilnimada iyo xasadku ka buuxay oo culimadiinni u waaweynada Sheekh Dirkow Sheekh Umal kowga ka ahaa Sheekh Umal kowga ka ahaa maalin walba uu Nairobi colaadda Soomaaliland ka soo hurinayo maalin walba colaadda Soomaaliland ka soo huriya kitaabka Ilaahay ku banaysanayo xasuuqa iyo dhibaatada loo geysanayo shacabka reer Soomaaliland ku banaysanayo kaayagu kaamaha dhibta Soomaaliya ka socotana nin kitaab ku banaysta maaha qaar kitaab ku banaysta maaha culimadiina iyo caamadiina iyo aqoonyahankiina iyo waxaan ku iri madaxdiina iyo dumarkiina iyo dhalinyaradiina waxa ku socota Soomaaliland baabi'eed ummadda awlaalaadkiina Soomaaliyeed inay noolaato Soomaaliland inay noolaato raali kama tiidin ilaa culimadiinii baa dagaal kula jirto oo kitaabka ugu banaysanaysa naguma xoqi kartaan culimadayada Sheekh Mustafa itiraafkaygana waxba kama sheegin waana sheekhayagii cid wax yeeli kartaana ma jirto nagamana horkayn kartaan kuwa caamada ah ee Soomaaliland dhashay waxaan leeyahay haddaydan af Soomaaliga aqoon ku noqdo dhageysto fahma ayaan leeyahay Sheekh Mustafa nina taaban karo maaha waa Somalilander ku nool magaaladiisii way horumarka dalkiisa iyo dadkiisa iyo shacabkiisana isaga ka shaqeeya marka waxa la qoliyihiina dhalinyarada adeer adigoo aan diin iyo dhaqan iyo dadnimo iyo xishmad iyo bini'aadanimo midna aan haysan haddaad nin karaamo leh oo diin ahaan kaa badiya oo dhaqan ahaan kaa badiya oo maadi ahaan kaa badiya oo karaamo ahaan kaa badiya oo sharaf ahaan kaa badiya oo dhaqan ahaan kaa wanaagsan adaba orado waxba aad yeeli maysid waxba yeeli maysid Sheekh Mustafa kala xidhowna cid xidhi kartaa ma jirtaan ilaahay ahayn cid kale wax yeeli karto aan ilaahay ma jirto Sheekh Mustafana waa Somalilander waa culimadayada ku ugu waaweynaa waa muriidkayagii waa lama taabtaan isaga iyo Sheekh Dirir iyo ragga noocaas waa lama taabtaan wuxuu baan leeyahay alla maxaa dhaq culimada baratay alla maxaa dhaq Sheekh Mustafa baratay waa ku foofadanihiin oo siyaasadeedaan fahamsanayn waa Soomaaligeedaan fahmayn oo halka loo socdeedaan fahmayn oo wax laga hadlaydaan fahmayn indhala'aan taageero indhala'aana difaac indhala'aana fahan indhala'aana inta haysa waa inta Somaliland itiraafkeeda qof kasta oo reer Somaliland Sheekh iyo Shariif oo gartaagay Somaliland inay wax noqoto albaabada u furmay ay u sii socdaan qof kasta oo reer Somaliland ba gartaagay munaafiqiinta nagu dhex jira kuwa munaafiqiinta aheen nagu dhex jira ee doonaya inay dadka isku diraan waxa loo ka dhaxbaxa inta caamada ah een aragtidoodu fogayna war af Soomaaliga waa naga idin fasilay fahma ayaan leeyahay هذا waxaan ku soo ururaya waa hadalkaan idin ku bilaabay horay waxa dhaqniga baad Sheekh Mustafa iyo Sheekh Dirir iyo culimadaasi miisaan gaar ah bay nagu leeyihiin cid wax ka oran karta iyo cid hadli karta iyo cid wax ka sheegi karta midna ma waa caalimada yadii loo fadhiyaa kiisa والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته